guushiisu wadani dalka guushiisu wadani talimaya u bedeli dalka guushiisu wadani. السلام الله عليكم أصحابتا كسو دوادا برامج كلو غارة هرونتي أم كدو استاقي دونو وحيابا بدن أو حقيقة إن فيديوغن وحان ربا إنان كدو استاقو أما أن ثبر لغو سياسينتا سوماليدا إيو كوا عالمكا إن طبعا وحيدا هاوي not feeling يالسبو قواني واسكفتن واسكقراحو وحيابا بدن أو هرونتي وحقيقة يعني كدو استاقي دونا maahan wax qof bin aadan ah aan ku dureyno laakiin waa wax aan rabo inaan bulshada u ifiyo marka si loo fiiriyo dabcan waxa soo aragteen madaxweynaha Puntland Mr. Dani oo runtii TikTok-leyda uga caansan Soomaali aan dhaho marka loo fiiriyo gaar ahaan reer Muqdisho garbaha ka taagan yihiin u saarteen heestii uu qaaday fanaankii Sharon Boy marka si loo fiiriyo waa wax fiican in siyaasi uu soo dhaxgalo shacabkiisa in siyaasi Soomaaliyeed aan aragno garbaha haysto dhalinyaro runtii Soomaaliyeed oo caan ah oo wax aad u fiican laakiin waxyaabaha isweydiiyay marka oo ay maato isbardhig siyaasiyiinta Soomaalida iyo kuwa caalamka ah waxyaabaha jiraan ay isku mid ka yihiin iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin haddaan ku bilowno waxyaabaha ay isku mid ka yihiin dabcan siyaasi walbaba markuu rabo inuu kursi u tartamo wuxuu sameeyaa campaign-kaas ujeedadiisa ugu weyn tahay inuu helo cod fara badan ama shacbiyad uu sameeyo ama taageerayaashiisa uu ku dhex galo uu ka gado ujeedadiisa siyaasadeed waxa ay tahay caalamkana waa sidaas isku mid taas ayada ah siyaasiyiinta Soomaalida iyo kuwa caalamka waa isku mid laakiin siyaasiyiinta Soomaalida waxyaabaha ugu duwan yihiin kuwa caalamka waxa waaye marka si loo fiiriyo anaga siyaasiyiinteena mar walba oo la doorto marka la doorto unba hor dadka uga dambeysay ilaa laga gaaro doorasho kale soo socota ama soo dhow ama campaign kale oo hawada ku soo jiro ama markay wax ay ku adkaadaan ay rabaan wax inay furfuraan tusaale ahaan arrimo siyaasadeed ku adkaaday arrimo siyaasadeed ay rabaan inay furfuraan ay runtii waxaa laga yaabaa in macnaha kalsoonida ee shacabka ku qabeen markay hoos u dhac ka dareemaan ee isku dayaan inay shacabka soo dhex galaan laakiin inta ka horeysa ma la arko waxyaabaha oo marka oo aan ka xumaaday waxay tahay marka si loo fiiriyo dhaqan ahaan caado waa siyaasiyiinteena kulli isku mid way meel walba joogaan ama Soomaali joog ama Kenya joog ama Ethiopia joog meel walba joog ama Soomaali xataa joog adeeg ku taala meesha joog waxyaabaha isku midka ay ka yihiin oo unique ay ka yihiin dhammaantood ay kula duwanaan waxay tahay cod ma rabaan kursi ma doonayaan adeeg kula mid ku leeyihiin waa shacab macnaha saana ku yeelena saana yeelena shacabka dalka saana iyo horumarnayna magaalada nala u dhisayna dadkii saana yeelena marka soo loo fiiriyo maalinta la doorto ee ugu dambeynayso inay is aragtaan marka koowaad waxyaabaha marka inta badan keeno ma kursi jeceela ma waxay garanayeen waxyaabaha loo doortay ma waxaysan war u haynin runtii inay meesha u fadhiyaan shacabka inay u adeegaan hadda waxaan soo qaatay Siciid Dani waxaan u soo qaatay wax kale ma ahan odayga badda ku cagsan digaale iyo waxyaabo dhinaca kaga jira ognahay magaalada Boosaaso waxyaabihii ka dhacay maalmihii ugu dambeysay macnaha Puntland iyo dowladda dhexe naftooda kasta waa buqbuqaas jira marka loo fiiriyo arrimaha dibadda oday waa laga soo xiray marka wuxuu raadinayaa qaab kale kaligiisna maaha waa siyaasiyiinta oo dhan meel walba joogaan oo siyaasi Soomaali meel walba jooga mar walba ay wax ku adkaadaan ay macnaha ay isku dayayaan in ay kalsoonidooda soo celiyaan waxay raadinayaan qaab ay shacabka dhex galaan qaab ay dadka caanka ah kula kulmaan inta badan waxaa lagu eedeeyaa dadka caanka markay la kulmayaan waxay la kulmaan ujeedo ayaga u gaara ma ogeed dan kale uma la kulmaan waxyaabaha oo la kulmaan inta waxaa ka mid ah tusaale ahaan qofkan oo qof caan ah hadda Shuuc Cabdal Camal 1 million followers ku xiran TikTok-geeda sabab ognahay oo waxay buuxisbuuc hore buuxisay isbuucan I don't know marka ama hadhow hadii lacala imaato campaign ama support ka hesha qofkan ama ku taageera
waxaan aragnay siyaasiyiin fara badan sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Ow camal naftiisa wuxuu sameeyay hadda ka hor markii doorashada uu ku jiray ayaa wuxuu la kulmay fanaan caan ah oo hadda jooga dalka Sweden Ilka Casaqays Mareykan uu ka imaaday Nairobi tagay Nairobi cabaar joogay adoo Kenya ku dhex safray Mombasa meelahaas tagay uu soo laabtay Nairobi ku soo laabtay oday waa loo yeeray markii loo yeeray Kismaayo tagay Kismaayo markii uu tagay campaign wuxuu u bilaabay Axmed Ow waa markii doorashada Axmed Ow ku jiray waa wax siyaasiyiinta kulli ay ka wada sameeyeen midaan ishay wallahi been wax xaqiiq aan soo baaray campaign-ku waday Axmed Ow maalinta kursiga loo dhaaray Ilka Casaqays maalinta isku dambeysay berri marka doorasho u baahdo wuxuu soo raadinaa kan shalay ku fashilmay fanaanka racaan hadan raadinaa godowgii labada maalin fanaanka ognahay fanaaniinta waa macnaha inta badan waa afkood u shaqaystayaal waa marka runta laga hadlo macnaha qofkii markaas ku shubto bay ayaga fanaan u yihiin waxaan aragnay marka laga tago fanaaniintii hore howlada waa beri marka laga tago way yartahay fanaan Soomaaliyeed oo maamul goboleed aan u haysan inta badan way yartahay la yaab inay jirto laakiin waa hal iyo labo inta badan maamul goboleedada qabiilada caalanka samaystay kulligood way wadaysan markaas u fiiris waxyaabaha keenayna waxay tahay afkood u shaqaystayaal waa markaas u fiiris macnaha marxaladda markaa taagan bay dhiilka raadinayaan wax kala soo socda qarannimada Soomaaliya isku duubnida Soomaali weyn waxaas dhan waxa ugu dambeysay howlada waa barnaamij soo fiirin fanaaniinta kale cusubad soo baxday kasta waxaa moodaa inaysan daryeeleynin qarannimada Soomaaliya ay fiirinayaan campaign-kooda ayay kelima qof walba caan ah wuxuu fiirin un marxaladda markaa taagan iyo wax markaa jab loo gelinayo wax kale ma fiirina siyaasigaas Axmed Ow runtii fanaanka asaga Ilka Casaqays markuu badda geliyay oo ugu booday Ilka Casaqays wax dhaxmar oo ogna hadda macaaradka ugu weyn Ilka Cas adduunku naciib Axmed Ow qof kale ma xaqiiqaduna waxay tahay kolba dhiil isku ogaayeen oday waa looga siibtay soo faham wax kale ma marka labada siyaasi kelima ahan siyaasiyiinta badi yihiin marka loo fiiriyo waxaa jiraan hadda labada waxaan u soo qaato waxay tahay kistoo faarar badan aan ku haya oo runtii cadcad hadda marka loo fiiriyo waxyaabaha ugu waaweyn ay siyaasiyiinta Soomaalida ku madaxda hadda federaalka taas marka loo fiiriyo ku jira naftooda hadda Farmaajo ama Xasan Sheekh Maxamuud ama Sheekh Shariif qof ku ahaadaba waa saddexda madaxweyne hadda ugu dambeysay Soomaaliya marka loo fiiriyo hadaladooda dib u raac markay campaign ku jireen hadda Xasan Sheekh Maxamuud campaign ku jiray walow qof la aqaan uusan ahayn laakiin macnaha campaign waxyaabaha ku soo galay iyo markuu doorashada uu fadhiistay waxyaabaha uu qabtay marka la isku fiiriyo waa wax saan u kala jeedo Farmaajo naftiisa sidoo kale campaign markuu soo galay hadaladiisii oo adkaa ay ficiladiisa uu sameeyay marka loo fiiriyo kasta waxaa muuqda waxyaabo inay saan u kala jeedaan oo eedeyn badan adag dush loo riday laakiin walow Soomaali qof walba oo madax u ah in la eedeeyo jecel yahay laakiin hadda topiga ugu weyn oo aan dul istaagay waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka marka la isku bariyo way kuweena Soomaaliyeed marka campaign ay ku jiraan ama marka arrin ku adkaato kali loo arkaa oo marka aan loo arkin kuwa Kenya naftooda ay ku jiraan oo xildhibaan waxa laga yaabaa marka campaign uu ku jiro bas inuu soo dhex fadhiisto eheladiisa ama dadka codka uu ka rabo bas codka markuu u helo uu baxaa state house ka Nairobi gala meel kale ma arkaysid inuu shacabka soo laabto dib ugu soo laabto ama dadka shalay doortay uu dib u soo xasuusto waxa la suyoon markay doorasho la gaaro hadda kore waxaan dhageystay Sheekh Cabdi Khayr la siiyo oo taqaan dhamaantiina siyaasiga wuxuu dhahay markuu rabo inuu adi cod ka helo isku day macnaha si jaranjaro soo qaatay jaranjaro marka guri lagu koraayo inta badan jaranjaro la koro marka guriga jaranjaro la tuuraa oo mu baahnid waa meesha tagaarta siyaasiyiinta saas u isticmaalaan qabiilka soo fiiriyo waa jaranjaro marka waa qabiilka isku day inuu ku koro kursiga meesha uu rabo inuu ku gaaro maalintii uu kursigaas meesha uu rabo uu gaaro uu tuura qabiilka waa si jaranjaro camal marka uu tuuro waxaa la sugi
markay jaranjaradaas hoos kuwii kor saarna kursi isku dhacaan uu dhul kusoo dhaco waxaa laga yaabaa inuu haddana ii imaado sifa jaranjar maada uu koro ujeedadiisa ugu weyn waxaa waay un maanta kuli inuu raadiyo qaab uu ku kori karo kursigiisa ama uu ku heli karo meesha uu rabo inuu ka gaaro siyaasadiisa oo ah kursiga uu higsanayo wax kale ma aha arrimahan ayaa waxaa mooda inay yihiin waxyaaba xaqiiq ah bulshada aysan ku dhiiraneen ama aysan aragti ay ka qabin waana wax siyaasiyiinta soomaalida dhammaantood ay ka wada sameeyeen hadday noqon lahayd madaxweyne hadday noqon lahayd wasiir hadday noqon lahayd xildhibaan ama wax walbaba marka fariinteeda ugu weyn waxay tahay un yaa lagu gaadan adiga isilaali hadda adduunka ma ahan yaa jaranjaro lagaa dhiganin yaa lagaa dhiganin macnaha geed macnaha marka meel lagu tiigsado ama jaranjaro marka meel lagu koro iska tuura ha noqonin ee noqo qof xisaabtamo anaka og hadda in codkeena ay adag tahay inaan qof siino oo kalsoonaan ku qabno laakiin wax walboo dhaco indhaha ka fiiri laakiin ha noqonin qof jaranjaro camal loo koro oo haddana iska tuuro fariinteeda midaas asxaabteena soo dhawaada kuwa cusubna runtii oo nagu soo biray aad umaasantiin video inta kusoo gabagabeynaya subscribe